anoo qadka iskaga jira waxaan arkay sawirkan oo canuga yar markaas dhow dhashay oo wejigiis xanaaq badan ka muuqdo. waxaa macquula inuu xanaaqsan yahay mise in wejigiisa kaliya ay kasoo muuqatay. assalaamu calaykum. muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa luuqadda jirka, ama si kale haddaan u dhigno hadalka aan ereyba ku jirin. luuqadda jirka waxay qayb weyn ka qaadataa wada xiriirka. ku dhowaad 60 ilaa 65 ee wada xiriirkeena waa luuqadda jirka. run ahaantii waa waxyaabaha ugu horeeyo ee aan baranno hadalka ka hor. luuqadda jirka waxay xog kaa siinaysaa dareenka dadka iyo xaaladda ay ku sugan yihiin markaas. dadka badanaa waxay isku qaldaan luuqadda jirka iyo sign language ama luuqadda dhagoolaha. sign language waa luuqad dhan oo gooni ah oo garaamarkeeda waxeeda dhan wadata sida luuqadaha kale. laakiin dadka dhagoolaha ah way kaga fiican yihiin dadka kale akhrinta luuqadda jirka, maadaama luuqadoodu ay tahay dhaqdhaqaaqa iyo akhrinta dhaqdhaqaaqaas way ku fiican yihiin fahamka luuqadda jirka. dhinaca kale luuqadda jirka hal qaab keliya looma fasiri karo. hal dhaqaaq ayaa wuxuu yeelan karaa micno badan. midda kale dhaqamada siday u kala duwan yihiin ayay u kala duwan tahay luuqadda jirka. tusaale, sida hindida markay madaxa luxayaan waxay ula jeedaan haa, laakiin dhaqamada kale sida dhaqankeena oo kale waxaan u aragnaa maya. dhaqan walba luuqadda jirka u khaas ah ayuu leeyahay, laakiin way jiraan kuwo caalami ah. luuqadda jirka waxaa kaloo loo isticmaalaa xaqiijinta ammaanka iyo in cadaalad loo helo dhibanayaal badan. qofka waxaa laga fiiriyaa hadalkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa inay isleeyihiin. haddii ay islahaan waayaanna shaki ayaa imaanaya. meelaha laga akhriyo luuqadda jirka waxaa ka mid ah wejiga. waxaan wada ognahay in wejiga kasoo muuqanayso inta badan waxyaabaha aad dareemayso, ayna adag tahay in laga been sheego. waxaa jirto 7 dareen oo caalami ah oo badanaa wejiga kasoo muuqdaan, waxayna kala yihiin farxad, murugo, cabsi, karaahiyo, xaqiraad, yaab iyo xanaaq. sidaan horey usoo sheegay, mar walba ma saxnaan karto luuqadda jirka, laakiin waa tacbiirsi oo laisku xirxiro dhaqaaqii hore iyo dhaqaaqa ka dambeeya iyo xaaladda qofku ku sugan yahay in laisku dardarsado oo sidaas lagu akhriyo. waxayna u baahan tahay in attention badan la bixiyo, in si fiican loo fiiriyo.